asalaamu calaykum hindiya dhulka la yaabka iyo cajaa'ibta halkan waxaan kugu soo gudbinayaa xaqaa'iq ku saabsan waddanka hindiya waxaa macquula in aadan maqal xaqaa'iqda aan halkan kusoo gudbin doono dabcan kama hadli doono macluumaadka caadiga ee hindiya sida meesha ay dhacdo waa arrin inteena badan aan naqaano haddaba kusoo dhowaada 15 xaqaa'iqo ku saabsan waddanka hindiya hindiya waa dalka labaad ee ugu dadka badan caalamka tiro gaaraysa 1 bilyan iyo 200 milyan oo qof waana mid ka mid ah dhaqaalayaasha ugu xooggan caalamka wax soo saar gaaraya 5 trilyan dollar laakiin maadaama dadku aad u badan yahay waxaa badan sidoo kale dadka fuqarada ee ku nool waddanka hindiya wadooyinka hindiya dhererkooda markii la isku daro waxay gaaraysaa 4.7 milyan kilomitir dhanka wadooyinka hindiya waxa kaga horeeyay kaliya Mareykanka waa markii laga hadlayo dhererka wadooyinka iyo magaalooyinka isku xiraan sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka hawada magaalada New Delhi caasimadda waddanka Hindiya waa tan ugu wasaqda badan caalamka warshadaha qiiqa gawaarida howlaha malaayiinta qof waa magaalo ay ku nool yihiin dad ka badan 20 milyan oo qof waa tiro ka badan inta afka Soomaaliga ku hadasho laakiin ku nool hal magaalo dadka ku dhinta shilalka gawaarida waddanka Hindiya waxaa lagu qiyaasaa hal qof 3 daqiiqado sanadkii 2012 dadka shilalka gawaarida ku dhintay ama ku dhaawacmay waxaa lagu qiyaasay 138,258 qof Hindiya waa waddanka ugu badan caalamka ee leh lo'da ama laga helo lo'da la dhaqdo tiro lagu qiyaasay 66 milyan Hindiya waa dalalka ugu badan caalamka ay ka dhacdo isdilitaanka in qofku ismarjiyo markuu nolosha ka quusto sanad gudaheed waxaa la diiwaan geliyay 135,000 oo dhacdo taasoo ka dhigan maalintii wax ka badan 300 oo qof inay isdilaan xitaa dhanka qurbaha qof Soomaali oo jooga khaliijka ayaa ii sheegay in hindi badan ay go'aansatay in ay naftooda soo afjaraan arrimo la xiriira adayga nolosha muslimiinta waddanka Hindiya waxay ka badan yihiin dadka wadamada Masar, Khaliijka, Suudaan markii la isku daro dhamaantood waliba malaayiin qof ayaa sii dheer sidoo kale hadii la isbarbar dhigo muslimiinta Hindiya ee dadka Ruushka oo dhan waxaa badan muslimiinta Hindiya tirada muslimiinta Hindiya waxaa lagu qiyaasay 220 milyan oo qof inkastoo waliba tira koobyada qaar intaas wax badan ka sii badiyaan oo ilaa 250 milyan ayay gaarsiiyaan muslimiinta Hindiya hadii ay ahaan lahaayeen waddan goonidiisa u taagan waxay gali lahaayeen kaalinta shanaad wadamada caalamka ugu dadka badan guriga adduunka ugu qaalsan xilligan wuxuu ku yaalaa Hindiya gaar ahaan magaalada Mumbai waxaana iskale milyaneerka Mukesh Ambani wuxuuna ka kooban yahay 27 dabaq dhisidiisa waxaa ku baxday 1 bilyan oo dollar waxaana ka shaqeeya 600 oo qof Taj Mahal oo ah meel ay malaayiin qof booqato sanadkii dalxiis ahaan waxaa dhisay boqor muslim ah oo Hindiya ka talin jiro lagu magacaabo Shah Jahan wuxuuna dhisay kadib geerida xaaskiisa oo aad u jeclaa ee lagu magacaabi jiray Mumtaz Mahal si uu ugu xasuusto waa dhismo aad u qurxan kana yaabiyay injineerada maanta waxaa la dhisay Taj Mahal intii u dhaxaysay 1630 ilaa 1648 miilaadi wajiyada ugu caansan aflaamta Hindiga Bollywoodka ama ragga jila filimada waa muslimiin sida Salman Khan, Shah Rukh Khan, Saif Ali Khan laakiin ma inkiri karna muuqaalada xishoodka ka dhanka ee lagu arko aflaamta raggaas aan soo sheegnay ay matalaan waxaan soo sheegnay in Hindiya muslimiin badan ku nool yihiin sidaas darteed Hindiya waa meesha ugu masaajidada badan caalamka markii la yiraahdo wadan 400,000 oo masjid ayaa ku yaala waddanka Hindiya inta la hayo taariikhda Hindiya weligeed dal kala duulaan kumay qaadin dagaalamay gelin marka laga reebo dhibaatada gobolka Kashmir ee Pakistan iyo Shiinaha kala dhaxayso sidoo kale ma inkiri karna falalka xun ee ciidanka Hindiya ka geystaan gobolka Kashmir ee ka dhanka ah muslimiinta reer Kashmir dumarka Hindiya waxay caan ku yihiin dahabka la isku qurxiyo sidaas darteed 12% dahabka caalamka oo dhan gacmaha iyo luqunta dumarka Hindiya ayuu ku xiran yahay taasoo ka dhigan in dahabka dumarka Hindiya uu ka badan yahay kaydka wadamada Mareykanka, Switzerland, Jarmalka markii la isku daro dhamaantood Hindiya waa waddanka cajaa'ibta iyo la yaabka waxaa looga hadlaa luqado aad u badan oo aanan la soo koobi karin luqado ka badan ku dhawaad 2,000 oo luqadood luqadaha waaweyn ayaa gaaray kaliya 122 luqadood anigaan idinla hadlay waxaan indhahiga saaray 2 nin oo Hindi ah laakiin kala luqado aan isfahmaynin mid wuxuu ka imaaday Hyderabad oo waxa looga hadlaa afka Hindiga mid kalena wuxuu ka imaaday koonfurta Hindiya gobolka Kerala oo looga hadlo luqadda Malbariga ama Malayalam
shirkadaha caalamiga ee aadka u waaweyn waxaa madax ka ah hindidu waa dad aad u shaqeeyo xirfad iyo dulqaad badan aanan xanaaqayn hawshooda aad diiradda u saaro waxaana daliil u ah shirkado heer caalamiga ku aaminay maamulayaal hindi ah in ay hogaamiyaan shirkadahooda madaxa fulinta shirkadda Google ee Mareykanka waa nin hindi oo lagu magacaabo Sundar Pichai madaxa guud ee shirkadda Microsoft sidoo kale waa hindi lagu magacaabo Satya Nadella sidoo kale shirkadda Pepsi Mastercard waxaa madax ka ah niman hindi ah fadlan haddaad ka heshay muuqaalkan like iyo subscribe saar kanaalka ogaansho ka dhiga saaxiibkaaga u gudbi saaxiibadaada si aan kugu soo gudbino muuqaalo kala gedisan oo xiiso badan